السلام عليكم dhalinyaro soo dhawaada waa macalin maxamuud cashkan waxaan ku arki doonaa tobankan erey meesha noo saaran ereyga koowaad waxaa loo aqriyaa santan ereygan intaan gelin erey kale waxaa jira aan ku soo baranay cashkin 239aad ereyga ugu dambeeyay tusaale sunbathing oo qofka inuu qorraxda hoos seexda sunburn inuu qofka qorraxda gubta oo inta dadka cadaanka maadaama maqaarkooda cad yahay qorraxda yani way gubayso qofka meesha waa soo gududanayso ama sun cream oo ah qofka inuu kareem marsado intuusan qorraxda hoos seexan suntan waxaa la yiraahdaa qofka afrikaanka ma okay cadaanka markii qorraxda cabaar hoos jiifaan maqaarkooda wuu isbedelaa oo wuxuu noqdaa brown marka isbedelidaas maqaarka ee uu brown noqonaya keentayna qorraxda ayaa la yiraahdaa suntan marka waxaan leeyahay Susan got a suntan maqaarkeeda wuxuu noqday brown waa yani qaxwi ereyga shanaad suburb waxaa excellent wax cajiib ah for example cunto macaan baa isiisay waxaan ku leeyahay the food was superb cunto aad wanaagsan bay ahayd excellent camal ama very good waxaa kasoo horjeedo terrible wax aad u xun ereyga saddexaad waa surf the web waa ina internetka dhex wareegatid aniga camal hadda I surf the web daily maalin walba internetka dhex wareega maraan macaamiil wax barayo maraan macaamiil xiriirayo maraan wax ka dhex raadinayo dhamaantood surf the web marka waa to browse online internetka dhex wareegatid ereyga afraad waa swerve waa inuu qofka hal mar uu directionkiisa bedelo yani dhakan buu socday hal mar buu isbedela for example gaari the car swerved suddenly ayaa leedahay hal mar buu isbedela waxay isku macno yihiin turn ama change direction yes ereyga shanaad waa syllable waa ereyga marka qaabka lagu dhawaaqayo for example hadda tusaalahan bixiyo tusaalaha laga yaabo inaan ku fahano haddaan ku dhaho ereygan teacher waa 2 syllables waa 2 syllable waa t iyo ja teacher soo ma aragtid hadda word waa 1 syllable father waa fa iyo the 2 syllable kuwa saddex waa jiraan kuwa afar waa jiraan okay ereyga lixaad tallish waa qof yara dheer laakiin aad aan u dheerayn so haddaan ku dhaho Ahmed is tallish wuu yara dheer yahay okay he is not very tall aad uma dheero but he is tallish wuu yara dheer yahay ereyga toddobaad taxi rank waa meesha tagaasida istaagaan ay ku sugaan macaamiisha adigu stagekooda so mostly they wait for example haddaan ku dhaho wait for me at the taxi rank meesha taxi igu sugwa ama taxi stand hadaa dhahdo iyadana waa caadi ereyga sideedaad waa temple waa meel wax lagu caabudo inta badan muslimiintu waxay aadaan masaajid waxaa la yiraahdaa mosque kristaankan waxay aadaan church kaniisada yahuudan waxay aadaan synagogue somaha hindidan waxay aadaan ama buddhistaha temple waa macbadka waa meesha ku cibaadaystaan yes ereyga sagaalaad thriller waa wax xiiso badan haddaan ku dhaho waa filin xiiso badan waa thriller movie a very exciting movie filin xiiso badan ama thriller book xiiso badan marka thriller waa wax aad u xiiso badan ereyga tobanaad ee ugu dambeeyo tiles waxaa la yiraahdaa mutuleelka guryaha dhulka la dhigo hadda guriga aan deganahay markii la shimiiteeyay mutuleel baa la saara mutuleelkaas waxaa la yiraahdaa tiles musqulahana waa lagu dhajiyaa tiles hadaadan aqoonin ma aqaan wax Soomaali qaabka kugu sheego okay cashka intaas ayuu ka yahay until next time stay safe and God bless you bye bye